waxaan ognahay markii Trump xilka uu la wareegay in uu joojiyay lacaga aad u fara badan oo dowladda Mareykanku ay siin jirtay wadamada caalamka oo deeq ahaan loo siin jiray. Waxa uu qayb ka ahayd barnaamijkiisii in la yareeyo lacagta dowladda Mareykanku ay qarash garayso. Waxa uu yiri maxaan anagu lacaga ugu bixinaynaa wadamada caalamka, inaga ayaaba u baahanba, wadanka ayaa deyn fara badan lagu leeyahay. Marka hadda sharci cusub oo waxaa jira xildhibaan ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo Republican ah lagana soo doorto gobolka Texas uu soo bandhigay toddobaadkii hore. Sharcigan waxaa la yiraahdaa HR 8334 Taxpayer Protection and Somalia Accountability Act of 2026. waa ilaalinta canshuurta ay bixiyaan dadka Mareykanka iyo xeerka la xisaabtanka dowladda Soomaaliya ee sanadkan 2026. waxaa soo bandhigay xildhibaan la yiraahdo Ronnie Jackson oo laga soo doorto degmada 13aad ee gobolka Texas. xildhibaankan markii hore waxa uu ahaan jiray dhakhtarka qaaska ah ee madaxweyne Trump afartiisii sano hore ee wadanka uu madaxweynaha ka ahaa. markii Trump xilka uu ka degay kadibna xildhibaannimo ayuu u tartamay 3 bishii January ee sanadkii 2021 ayaana xildhibaannimada loo dhaariyay. haddaba marka xeerkan waxa uu soo bandhigay toddobaadkii hore oo Kongareeska ayuu hadda hor yaala 21kii bishan ayuu soo bandhigay. waxaana xeerkan uu yahay marka xeer la doonayo in lagula xisaabtamo dowladda Soomaaliya isla markaana deeqaha la siiyo haddii laga weeciyo meeshii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya lagula xisaabtamo. marka sharcigan oo sidii sheegay ah Taxpayer Protection and Somalia Accountability Act of 2026 waxa muhiimadiisu ay tahay in dowladda Soomaaliya laga joojiyo oo dowladda Mareykanka ay ka joojiso caawinaadda ay siiso haddii shuruudahan qaaska ah la helo. waxaana la doonayaa in la dhaqan geliyo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo laguna soconayo lacagaha Soomaaliya loo diro, sidoo kale halka ay marayaan lacagaha xawaaladaha ama dadka Soomaalidu ay diraan sidoo kalena waa ay ku jirtaa. marka qodobada ugu muhiimsan ayaa waxa ay kala yihiin oo aan rabay inaan idinla wadaago toddobadan qodob ee soo socota. qodobka koobaad ayaa wuxuu yahay caawinaadda ajnabiga ah, waa caawinaadda dowladda Mareykanku ay siiso dowladda Soomaaliya. waxaana sharcigan uu soo jeedinayaa in gabi ahaanba la joojiyo midda xiriir iyo sidoo kale tan dhaqaale ama caawinaad oo la siiyo dowladda Soomaaliya haddii aysan samaynin ilaalin ku filan oo looga hortegayo in deeqaha Mareykanka uu siiyo Soomaaliya aan laga weecin meeshii loogu talagalay. marka haddii lagu arko in deeqaha Mareykanka uu siinayo Soomaaliya laga weecinayo in meeshii loogu talagalay ama dadkii loogu talagalay aysan gaaraynin, markaasi waxay tahay in laga joojiyo deeqaha Mareykanka uu siinayo Soomaaliya. sidoo kale waxaa qodobkaasi hoos imaanaya in la joojiyo caawinaadda uu Mareykanku siiyo dalka Soomaaliya haddii la xaqiijiyo in lacagahaasi si qaldan loo isticmaalay amaba sidoo kale meeshii loogu talagalay aan la geynin. sidoo kale qodobkan waxaa hoos imaanaya in caawinaadaha la siiyo organisationada ama NGO-yada caalamiga ah in aan dhinaca dowladda Soomaaliya loo marin oo iyaga si toos ah loo siiyo, maadaama haddii dowladda Soomaaliya musuqmaasuq lagu arko. qodobka labaadna waxa uu yahay in la xanibo lacagaha loo diro Soomaaliya. sharcigan ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa marka Kongareeska uu sharcigan meel mariyo, madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu qaado tillaabooyin looga hortegayo lacagaha shakhsiyaadka ama sidoo kale hay'aduhu ay u diraan Soomaaliya in lacagahaasi haddii shuruudahan lagu arko gabi ahaanba lacagahaasi la joojiyo. shuruudahaasi waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo lacagahaasi in aysan ka baxaynin barnaamijyada dowladda Mareykanku ay bixiso, waa barnaamijyada dadka lagu caawinayo sida Social Security iyo lacagahaasi in aysan lacagahaasi aan laga diraynin. sidoo kalena waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo in qofka lacagahaasi diraya uusan dowladda ka helaynin Mareykanka wax caawinaad ah. waxaa sidoo kale jirta qodobka saddexaad uu yahay in la caddeeyo lacagahaasi inaysan ka faa'iidaysanaynin dowladda Soomaaliya ama sidoo kale ururada argagixisada ah. waa kii riboodkii wargeyska uu qoray leeyahay lacagaha laga diro gobolka Minnesota ururka Al-Shabaab ayay si toos ah gacantooda u galaan, walow arrintaasi weli aan caddayn loo helin. qodobka saddexaad waxa uu yahay in reporting iyo weliba accountability in dadku ay soo sheegaan lana xisaabtamo. wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxaa looga baahnaan doonaa in uu Kongareeska ka siiyo warbixin amaba cadeymo la xiriirta in Mareykanka lacagaha uu u diro Soomaaliya, isla markaana sidoo kale lacagahaasi sida loo xawilo amaba loogu diro dowladda
Soomaaliya iyo sidoo kalena dadka ka faa'iideysanaya ee saraakiisha dowladda Soomaaliya ama sidoo kale ururada argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrimahaasi oo idilna looga baahan yahay. Qodobka afraadna waxa uu yahay visa restriction, in xanibaad dhinaca viisayaasha ah lagu sameeyo. Sharcigan waxa uu dhigayaa in qodobadiisana ka mid ah in xayiraad dhinaca viisayaasha ah lagu soo rogo mas'uuliyiinta iyo weliba kuwa hore ee dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ku lug leh musuqmaasuq amaba si qaldan u isticmaala deeqihii Mareykanka uu siinayay Soomaaliya. Waxaana sidoo kale xanibaadahaasi ay saameyn karaan qoysaska u dhow mas'uuliyiinta dowladda kuwa hore amaba kuwa hadda jooga ee musuqmaasuq lagu helo. Qodobka shanaad ayaa sidoo kale waxa uu dhigayaa in xanibaado ama xayiraado dheeraad ah lagu soo rogo muddo 60 maalmood gudahooda. Ayaa sharcigan marka la meel mariyo madaxweynaha waxaa looga baahan yahay in cunaqabatayn uu ku soo rogo mas'uuliyiinta ajnabiga ah ee lagu helo inay ku lug leeyihiin musuqmaasuq oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo gacan ka geysta in deeqaha Mareykanka uu siiyo Soomaaliya ay u weeciyaan meel aan ahayn meeshii loola jeeday ama dadkii loogu talagalay in la siiyo u leexiya. Qodobka lixaadna waxa uu yahay in abaalmarin loo ballan qaado dadka soo sheega dadka Mareykanka ay musuqmaasuqeen ka baxsaday oo Soomaaliya tagay. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa ogolaansho loo siinayaa in ay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo bandhigto abaalmarin la siinayo qofka soo sheega warbixin la xiriirinaysa dadka amaba qeexaysa dadka iyagu shakhsiyaadka ah ee ku lug leh sidii loo heli lahaa musuqmaasuqa intay Mareykanka ay musuqmaasuqeen isla markaana sidoo kalena baxsaday. Qofkii soo sheega in abaalmarin loo ballan qaado halka qofkaasi halka uu ku sugan yahay iyo sidoo kale lacagihii uu la baxsaday sidii loo heli lahaa. waxaana ay noqon kartaa lacagta ugu badan ee abaalmarin loo siin karo shakhsiyaadka soo sheega dadka Mareykanka intay musuqmaasuqeen lacaga fara badan baxsaday halka ay ku sugan yihiin in la soo xiro amaba lacagihii ay la baxsadeen la soo qabto ilaa iyo $250,000 ayaa lacagta ugu badan ee loo ballan qaadi kara ay tahay. Marka sharcigan waxa uu yahay sharci hadda Congress-ka la hordhigay gudiyada ku lug leh markay ansixiyaan kadib oo Congress-ka haddii uu ansixiyana markaasi kadib ayaa sharci uu noqonaya. Sidaas darteed ayaa hadda xildhibaankan ilaa iyo 4 xildhibaan oo kale ayaa waxa la leeyahay waa ay ku weheliyaan walow magacadooda aan la sheegin. Congress-ka ayaana la filayaa in sharcigan la hordhigo haddii ay ansixiyaan markaasi kadib madaxweynaha ayaa saxiixaya, sidaasi ayuuna sharci ku noqonaya. Marka waxaan rabay inaan idila socodsiiyo sharcigan loogu magac daray Taxpayer Protection and Somalia Accountability Act of 2026 oo xildhibaankan uu Congress-ka soo hordhigay isla markaana dhowr aqrin marka uu maray kadibna ay Congress-ku ka doodi doonaan. Marka waan arki doonaa haddii labada aqal ay meel mariyaan madaxweynuhuna uu saxiixo.